filimkeena waxa uu ku bilaabanayaa koox dad maalqabeen ah oo si qarsoodi u qorsheynaya dhacdo naxdin leh. Waxay qabtaan dad ay ugu yeeraan ugaarsiga, kuwaas oo ay ku jiraan dad caadi ah oo aan waxba ka ogeyn qorshahooda. Calaashan si ay u ugaarsadaan dadkaas iyaga oo arkay inay yihiin bartilmaameedyo kooxdan, waxaana hogaaminaysa haweeney lagu magacaabo Athena Stone, waxaana la socda xubno kale oo maalqabeen ah. Inta aysan qorshahooda bilaabin, mid ka mid ah dadka loo diyaariyey ugaarsiga ayaa si lama filaan ah uga soo baxa diyaaradda gaarka ah ee Athena. Ninkana waxaa lagu magacaabaa Randy, waxuuna ka soo kacay qaybta alaabta ee diyaaradda isagoo jah wareersan, maadaama uusan waqtigii loogu talagalay soo toosin. Ted oo uu sheegay inuu yahay dhakhtar ayaa isku dayaya inuu dejiyo, laakiin ugu dambeyn Athena ayaa dishay Randy si qorshahooda uusan u fashilmin. waxyar kadibna filimku waxa uu wareegaya dadkii bartilmaameedka ahaa. 12 qof oo aan isaqoonin ayaa si lama filaan ah uga soo toosaya meel keen ah, iyagoo aanay garanaynin meesha ay joogaan ama xitaa sida ay halkaas ku yimaadeen. mid kastana afkiisa waxaa ugu xirnaa qalab ka celinaya inay hadlaan. mid ka mid ah gabdhaha oo lagu magacaabo Yoga Pants ayaa helaysa furayaal ku jira baakad yar oo ku taalo meel u dhow goobta, waxayna dadka oo dhan ku guuleysanayaan inay iska furaan qalabka afka ugu xiran. markii ay bilaabaan inay fahmaan xaaladda, waxay ogaanayaan in waxani loogu yeero Manor House, waxaana loo keenay inay noqdaan ugaadh ay koox maalqabeen ah ku ciyaarto. waxayna helayaan hub lagu qariyey keenta, iyagoo aan xaaladda si buuxda u fahmin. isla markiiba ciyaartu ayaa bilaabanaysa. Yoga Pants ayaana noqonaysa qofkii ugu horeeyey ee la beegsada iyadoo laga soo toogtay meel fog. dadka kalena waxay isku dayayaan inay cararaan oo ay helaan meel ammaan ah. idoo lagu magacaabo Dad ayaa ku dhacaysa dabil loo diyaariyey. nin lagu magacaabo Tracker ayaana isku dayaya inuu caawiyo. markii uu ku guuleystay inuu dabinka ka soo saaro, ayuu si lama filaan ah ugu istaagaya miino dhulka lagu aasay. inta uusan wax tallaabo ah qaadinna, miinada ayaa la kicisa, halkaas ayayna ku dhimanayaan. kooxda kalena waxay ogaanayaan in weeraradu ay ka imaanayaan meel fog oo ku taalo xarun ugaarsadayaashu ka maamulayaan dhacdada. markay sii socdaan, qaar ka mid ah dadka waxay yeelayaan xaydaab ku wareegsan keenta, waxayna u malaynayaan in dhinac kale uu jiro magaalo ama dad caadi ah oo caawin kara, iyagoo isku dayaya inay ka gudbaan xaydaabka. marka inta badan dad ka gudbaa, midkoo lagu magacaabo Target ayaa noqonaya dhibanaha xiga kadib markii filaaro badan lagu dhuftay. kuwa kalena waxay ugu dambeyn gaarayaan dhinaca kale iyagoo rajeynaya inay badbaadeen. waxyar kadibna waxay gaarayaan xarun shidaal oo ay joogaan 2 qof oo shaqaale ah, kuwaas oo lagu kala magacaabo Ma iyo Ba. ayagana waxay weydiinayaan meesha ay ku sugan yihiin. Ma iyo Bana waxay u sheegayaan inay ku dhow yihiin magaalada Elen ee gobolka Arkansas. Statenna wuxuu isku dayayaa inuu caawinaad raadiyo, wuxuuna isticmaalayaa taleefanka shaqaalaha si uu booliiska ula xiriiro. wuxuuna u sheegayaa in koox data ay afduubatay laguna hayo meel la yiraahdo Manor House, laakiin waxaysan ogeyn ayaa ah in wicitaankaas uu gaarayo qof ka tirsan kooxdii ugaarsiga waday. labada shaqaalahana inaysan ahayn shaqaale, balse ay ka tirsan yihiin kooxda dadka ugaarsata. markii Ma iyo Ba ogaadeen inay sirta sheegayaan, waxay weerarayaan dadka, waxayna dilayaan Staten iyo kuwa kale ee isku dayay inay baxsadaan. kadib waxay bilaabayaan inay nadiifiyaan goobta, iyagoo isku diyaarinaya haddii dad kale yimaadaan. waxaar kadibna middo ka tirsan kooxda la ugaarsanayo ayaa imaanaysa, taasoo lagu magacaabo Crystal Crazy. balse Crystal waa ay ka duwan tahay dadka kale, mana ah qof si fudud loo qiyaami karo. markii ay gudaha gasho, waxay si fudud u fahmaysaa in Ma iyo Ba ay been u sheegayaan. inta aysan wax tallaabo ah qaadin, Crystal ayaa weeraraysa, waa ayna dilaysaa. markii ay hubisa gaariga banaanka yaalay, waxay kaloo ogaanaysaa in taarigada ay been abuur tahay. markay ka fujisana, waxay ogaanaysaa arrin kale, taasoo ah in meesha ay joogaan aysan ahayn Arkansas, taa beddelkeedan inay joogaan Croatia. Crystal waxay qaadanaysaa qalabkii oo isgaarsiinta ee Ma iyo Ba si ay u dhageysato dadka kale ee ugaarsiga wada. waxay sidoo kale ogaanaysaa in dadka la ugaarsanayo lagu raadinayo diyaarado yaryar oo drones ah. si ay uga badbaadana, waxay bilaabaysaa inay si taxadar leh u dhuumato. dhanka kale, Crystal waxay la kulmaysaa Gary, kaas oo aaminsan fikrado sir ah. Garyna wuxuu rumaysan yahay in wax walba ay yihiin qorshe weyn oo ay sameeyeen dad awood leh. labadoodana waxay raacayaan tareen ay saaran yihiin dad qaxooti ah, laakiin Gary wuxuu ku adkeysanayaa in dadkaas ay yihiin dad loo soo diray inay ka qayb noqdaan qorshaha. markii ciidamo Croatia ay tareenka istaajiyeen, xaaladdu waa ay isbedelaysaa. waxaa soo baxaya nin lagu magacaabo Crisis Mike. Garyna wuxuu ogaanayaa in Meg dhab ahaantii ka tirsanayaan kooxda ugaarsiga. Megna wuxuu qiranayaa inuu qayb ka yahay qorshaha dadka kale ee tareenka saaran aysan wax lug ah ku lahayn. wuxuuna isku dayayaa inuu weyshis la gala Gary, laakiin Gary ma rumaysanayo, wuxuuna isticmaalayaa hub uu ka qaatay Meg, waa uuna dilayaa. kadib Crystal waxaa loo qaadayaa xero qaxooti ah, halkaasna waxay kula kulmaysaa Don oo sidoo kale ka mid ah dadkii la ugaarsanayay. waxyar kadibna waxaa imaanaya nin sheeganaya inuu yahay wakiilka socda safaaradda Mareykanka ee Croatia, magaciisa la dhaho Oliver, isagoo sheegaya inuu yimid inuu badbaadiyo iyaga. laakiin Crystal waxay bilaabaysaa inay ka shakiso hadalladiisa. markii ay aragto in waxyaabaha uu sheegaya aysan iswaafaqsaneyn, waxay fahmaysaa in Oliver uusan ahayn qof la aamini karo. inta ay safarka ku jireen, Crystal waxay ka takluusaysaa Oliver, kadibna iyada iyo Don waxay sii wadayaan raadinta jid ay ugu baxaan xaaladan.
markii ay baaraan gaariga ay wateen Crystal waxay ka helaysaa jirka geeri oo lagu qoriyo gudaha gaariga iyo sanduuq lagu qoray lacag laaluush ah. Waxay sidoo kale ka helaysaa qariirad muujinaysa meesha Manor House-ka ku yaalo. Crystalna waxay doon uga sheekeynaysaa sheeko ay ugu magac dartay bakaylaha iyo qooleyda. sheekaduna waxay ka hadlaysaa bakayle awood badan oo xanaaqay kadib markii qooleydu ka guuleysatay tartankii ay galeen. taasina waxay sababtay inuu sameeyo fal xun oo uu dilo qooleyda. Crystalna waxay ula jeedaa in dadka awoodda leh mararka qaar ay burburiyaan kuwa ay u arkaan inay ka hooseeyaan. markii ay gaaraan goobtii qorshaha laga maamulaya Crystal waxay la kulmaysaa xubno badan oo ka tirsan kooxda Athena. mid ayayna u dilaysaa xubnihii halkaas ku sugnaa. dhanka kale Athena waxay isku dayaysaa inay ogaato waxa dhacay iyadoo adeegsanaysa qalabka isgaarsiinta. waxayna doon weydiinaysaa haddii uu dilay Crystal taasoo caddeynaysa in doon dhab ahaantii ka tirsan yahay kooxda ugaarsiga wada. laakiin doon wuxuu isku dayayaa inuu isdifaaco isagoo sheegaya in Athena ay been sheegayso. laakiin Crystal ma dhegeysanayso waa ayna dilaysaa. kadib Crystal waxay arkaysaa Del oo ahaa qofka u qaabilsanaa dhanka tababarka iyo farsamada kooxda ugaarsiga. waxayna isku dayaysaa inay ka hesho xog ku saabsan Athena iyo halka ay ku sugan tahay. inta ay wada hadlayaan waxaa soo bixaysa xaqiiqo ku saabsan sababta ay kooxdan u sameynayaan Manor House. sanado ka hor xubnaha kooxda Athena waxay lahayeen wada sheekaysi ugaarsi oo kaftan ahaa. laakiin fariimahaas ayaa silma filaana internetka ugu faafay. dad badan ayaana rumaystay in qorshe dhab ah uu jiray. waxaana dhacdadaas loo bixiyey magaca Manor Gate. fadeexadaasna waxay burburisay sumcaddii iyo shaqooyinkii dadka ku jiray wadahadalka. si ay uga argutaan dadka faafiyey eedeymaha waxay go'aansadeen inay ka dhigaan qorshaha ugaarsiga mid dhab ah. waxayna bilaabeen inay afduubtaan dadka ay u arkaan inay mas-uul ka ahaayeen faafinta fikradahaas. Athena ayaana si gaar u dooratay in Crystal lagu daro liiska dadka la ugaarsanayo kadib markii ay aragtay qoraal ay Crystal baraha bulshada ku soo qortay. laakiin markii Crystal iyo Athena ugu dambeyn kulmaan Crystal waxay u sheegaysaa in Athena ay ku khaladay qof kale. haweeneyda Athena raadinaysay aysan iyada ahayn. labadoodana dagaal adag ayaa dhex maraya. dagaalkii ugu dambeeyey ee u dhexeeyey Crystal iyo Athena wuxuu noqonayaa mid aad u daran. labadoodana waxay isku dayayaan inuu midba midka kale ka adkaado. laakiin Crystal oo horey uga soo gudubtay khataro badan ayaa muujinaysa inay tahay qof aan si fudud looga adkaan karin. ugu dambeynna Athena ayaa ku dhimatay dagaalka halka Crystal ay ka badbaaday inkastoo dhaawac weyn uu soo gaaray. markii ay eegto meydka Athena Crystal waxay arkaysaa bakayle meel u dhow jooga. aragtidaasna waxay xusuusinaysaa sheekadii ay hore uga sheegtay doon ee ku saabsaneyd bakaylaha iyo qooleyda. waxayna isku dayaysaa inay daaweyso dhaawaceeda kadibna waxay qaadanaysaa dharka iyo boorsada Athena si ay goobtaas uga baxdo. waxayna u dhaqaaqdaa dhanka diyaaradii gaarka ahayd ee Athena. markii ay diyaarad gaartana waxay la kulantaa isla shaqaalihii diyaaradda ee bilowga filimka. shaqaalihii diyaaraddana wuxuu u malaynayaa inay tahay Athena. kadib dhacdooyinkii oo dhan Crystal waxay ka tegaysaa goobta iyadoo nool. halka sirtii Manor House iyo qorshihii Athena ay noqdeen kuwo burburay. dhammaadka filimkana wuxuu muujinayaa fariin ah awood, lacag iyo qorshe qarsoon aysan mar walba guul keenin, gaar ahaan markuu qof kala beegsanayo uu go'aansado inuu isdifaaco. filimkeenana wuxuu ku dhammaanayaa adigoo muuqaalka like saaray YouTube-keenana ku soo biiray. inuu muuqaalkan iyo muuqaalada xigo maca salaama.